isku hadafna waana iyo isku ujeedkeena wuxuu ahaa dhamaanteen inaanu soo ogaano baahida dadkii soo guuray oo Soomaaliyeed oo isku yimid meel kasta ka soo guureene mar hadii la isku yimaado aanu marka hore garacad baan ka soo bixitimay iyo jariiban dadkii inaan ka daba tagaan rabay laakiin haddaan meesha imid hadda ummad Soomaaliyeed baa isugu timid oo mas'uul waxaan ahay meeshii yimid oo ummad Soomaaliyeed u yimid dhamaantood mas'uuliyad baa iga saaran teeri xalay waxaan u adeegaynaa aniga iyo xogahayaa iyo rag ila socday dadkii ka soo guuray meesha la yiraahdo bacad weyne iyo hadii alla ku roon yahay qaydara iyo xarar dheer hoostiisa iyo baan u adeegaynaa waxaan nafaraysa mas'uuliyadda iyo magaranaysa iyo muslimtinimada iyo walaaltinimada baan nafaraysa idinkuna haddaad naga daba timaadeen idinkoo gudoomiyaashii gobolka iyo degmooyinka iyo saraakiisha ciidanka dawladda federaalka aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin dhamaanteen waxaan u soconaynaa oo meesha u nimid waxa weeye inaan u qareeno bulshadii aan mas'uuliyadda u haynay waana waxna la kula xisaabtamayo haddaan u shaqeynay haddaan u shaqeyn wixii aan qabanno waana la kula xisaabtamayo mas'uuliyad baan saaran khaliif baa ilaahay ardada ragga uga dhiga waxaan rabaa marka inaan warbixin idinka siiyo maadaama aan idinka soo horeeyay wixii aan la soo kodlay anu waxaan tagay oo gaaray ilaa shalay meeshii la dudun dadku saasay meel kasta u daadsan yihiin dadkii xoolihiiba iyadoo haddaad socotaan inaan malayn karin waxa aad maqasheen iyo waxa aad arkaysaan way kala duwan yihiin dad iyo duunyo aan noolayn oo u baahan in si degdeg ah loo soo gaaro oo gurmad loo fidiyo baanu soo aragnay dad bay u yimaadeen wanaagsan oo khayr qaba dadkaasi waxay u fureen baraagihii baa loo furay reegagii baa loo furay waa la soo dhaweeyay waxa la dejiyay meelihii boosashinada ahaayo maadaama ay dadku wadan wixii ay wax ku gurguraysan lahaayeen gaari caan dhameeyay intuu soo qaaday meel ku daadshay alxamdulillah rabbil alamin dad wanaagsan bay u yimaadeen dadkan degmadan hadii alla ku roonyahay Bursaalax iyo inta hoos timaada iyo Dar Salaam iyo meel kasto aan tagnay dadka saasa loo soo dhaweynayay dadka joogaana saasay uga amaan sheeganayeen dadka waxa loo fasaxay baraagihii ceeshii baa loo furay laakiin waxaan dareemaynaa oo tan hadda aan joogno oo kala Dar Salaam haddaan ka soo qaadno ummadda dul saaran iyo capacity ay qaadi kartaa aad bay u kala weyn yihiin aad iyo aad u kala weyn boqolkiiba boqol waa kala weyn yihiin waxay rabaan marka dadkaani dadkii wixii ay tari kareen way tareen laakiin hadda inay isku dulbaabaan ayagii oo waxay tagaysaa haddii aan la soo gaarin si degdeg loo soo gaarin inay isku dulbaabaan bay tagaysaa waxaan ka rabaa marka haddii Allah awood la idmo dadkan sidii loogu qareemi lahaa waxa aan u idmanahay ama loo doortay ama ciidanku tuutaa u qabaa waxa weeye in ummadan loo adeego loo qareemo baahida ugu weyn sida la sheegayo waa biyo dadka hadii aan soo wareysano oo dhex galay baahida koowaad oo ugu weyn waxa weeye biyo tan labaad waxa weeye meelaha badan oo hadda meelo badan aan maray xooluhuna waa baqteeyeen xanuunaana loo sheegay xooluhu ay qabaan xoolo caafimaadna waa u baahan yihiin biyana waa u baahan yihiin waxa yaalaha kale oo ugu muhiimsan oo la rabo in mar walba laga isha lagu hayo waxa kamid ah ammaanka ummad badan baa isku soo guudhay anigu waxaan arkay meesha la yiraahdo dadkii ka soo guuray Karkaar iyo dadkii ka soo guuray Wardheer iyo kuwii ka soo guuray Tawfiiq iyo degmada Jariiban iyo kuwii ka soo guuray meesha la Qaydaro iyo diyaal ku xarar dheer iyo hobyo oo meel ka wada cabayo inta isugu yimid waxaad garan kartaan ummadda inta faraleeg saqajaan baa isaga dhex jiri kara wax yar sidii uu sheegay gudoomiyaha xarfo iga horeeyay wiil gabar ku soo guurayay waa ummaddaas halka wada degan oo khayrka halka isugu timid wiil gabar ku soo guuray fidna ka dhici kadhaa aralaamii ammaanka iyo waa joogan saraakiisha ciidamadu iyo booliskii iyo militariga intaba in dadkaas ammaankooda laga warqabo oo dadka la dhex maro oo dadka la wacyi geliyo oo aan maaragtay la ilaaliyo dadkaas inay nabad ku wada noolaadaan nabad ku wada cabaan nabad ku wada daaqaan meeshaas khayrkii naqa ilaahay gashay waxay kala rabaan in qaylo dhaan degdeg ah oo sidii biyaha xagooda ceelasha kuwa aan soolarnayna waa soo aragnay kuwa soolarna waa soo aragnay kuwa soolar kale say u badan yihiin meeshaan hadda waxa iska ahayd dad yar baa iska deganaayo waxbooday iska dhuruqsan jireen laakiin markii awoodi soo dul fuushay soolaradii waa ka wada xun yihiin intaan ceel tagnay kii soolar waa ka xun yahay cilad baa kaga jidha kii motor lehna hadda naafta ma awoodi karaan tuulo yar oo gabigeedu laga yaabo inay 10 waab tahay oo ay u timid 8 milyan oo qoys soo dul degtay awood ay qaadi karaan waa garan karaan dadkaasi waxay rabaan si degdeg ah in loo gurmado shaqayna ka rabaan habeen iyo maalinba socota hadii Allah idmo waxay rabaan in qayl dhaan adduunka oo dhan la gaarsiiyo aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa dhamaantiin
sida aad maaragtay dadkiina uga daba timaadeen oo u soo booqateen oo aad rabtaan inaad ugu qareentaan oo baahidooda aad uga warqabtaan laftigeeda waxay tahay wax qaaliyo aan la heli karin